Digaaggani muddo 1 sano iyo bar ayuu noolaa madax la'aan. nin lagu magacaabo Real Oslin ayaa wuxuu habeen damcay inuu sodohdiisa casho u sameeyo. Wuxuuna madaxa ka jaray digaag la oranayay Mike. Digaaggan Mike la yiraahdo markii madaxa laga jaray, halkii laga firay inuu firig dhaho oo rafto kadibna uu dhinto, wuxuu ku noqday oo fariistay meeshii laga soo saaray. Cajiib. Ninkii ayaa yaabay oo argagaxay, wuxuuna ku laabtay sodohdiis isagoo u sheegay in digaaggii uu madaxa ka jaray uu weli nool yahay madax la'aan. Intaasi kadib deriskii oo dhan ayaa ogaaday sida ay arrintan u dhacday. Lloyd Oslin oo ahaa ninka digaagga iska leh ayaa durbo bilaabay inuu digaagga quudiyo isaga oo isticmaalaya tuubo dhuunta loo dalooliyay. Waxaana sidoo kale bogsaday boogihii digaagga ku yaalay. Lloyd Oslin wuxuu bilaabay inuu digaagga dadka tuso. Magaalooyin fara badan ayuu ku soo bandhigi jiray. Dadka ayaa u soo dalxiis tagi jiray, isaguna lacago ayuu ka qaadayay qof walba oo raba inuu digaaggan arko. Ninkan ayaa durba tijaar noqday. Ilaa $4,500 ayuu bil walba ka heli jiray digaaggan, taasi oo u dhiganta ilaa $50,000 ee lacagta maantaya. Haddaba sidee digaaggani ku noolaaday 18 bilood ama sanad iyo bar isaga oo madax la'aan ah? Hagaag. Digaaggan xilligii uu ninku qalayay wuxuu jaray qayb madaxa ka mid ah, halka qayb dhan oo maskaxda ka mid ah iyo xididdada muhiimka ah oo dhan uusan jarin. Waxaa digaaggan u badbaaday jugular vein oo ah xubinta ama halbowlaha dhiigga oksijiinta laga soo saaray ka soo qaada madaxa soona gaarsiisa wadnaha. Taasina waxay keentay in digaaggani uu noolaado muddo 18 bilood gaaraysa isaga oo madax la'aan ah oo aan haba yaraatee wax madaxa ku oolin, kaliya si ay ku taal hal dheg iyo qayb ka mid ah maskaxdii digaaggan. Bishii Maarch sanadkii 1947 xilli habeennimo ah ayuu digaaggani saxday, yacni dhuunta ayay wax u galeen. Lloyd Oslin xilligaasi ma wadan qalabkii uu digaagga ku badbaadin lahaa. Sidaasi darteed waxaa halkaasi ku qudhga'ay digaaggii noolaa muddo 1 sano iyo bar isaga oo madax la'aan ah. Digaaggan ayaa noqday mid caan ah, ninkii iska lahaana wuxuu u kasbay lacag fara badan iyo caanimo.